الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وابن عيسى iyo xalqad cusub waa xalqadii sideedaad iyo qur'aanka macaanihiisa iyo mucjisooyinkiisa qur'aanka ilaahay wuxuu u soo dejiyey khalqiga oo dhan carab keliya uma soo dejin insi iyo jinni baa loo soo dejiyey insi iyo jinni insi keliya maaha dad keliya maaha maca jinniga carab iyo cajam chinese yurubiyan afrikaan qolo kasta luqad kasta qur-aanku mucjiskiisu waa kaa luqad kasta ku hadal laakiin adiga luqadaadii gaara buu kuu yahay luqadda qur'aanka waa luqad carabiya oo asal ah maaha luqadaha kan hadda lagu hadlayo oo carabiga waa luqad carabiya oo asal ah oo ummad kasta ay fahmi karto marka hadda waxaanu ka baadhaynaa xalaqadan kelimadaha qur'aanka ku yimi oo soomaalidu isticmaasho carabtu ma isticmaasho soomaalida unbaa isticmaasha kelimadaha marka ku soo dhowaada like saarna iyo subscribe iyo share dheh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيات كواد أن أجنو waxay ku timi suurat albaqara aayadda 102 ilaahay wuxuu yidhi faman khaafa min muusin janafan aw ithman faaslaxa baynahum falaa ithma calayhi ina allaha qafuurun raxiim janafan waa meylan can xaqa aad ka beedhid weeye ama gef waa gefidii janaf waa gef bay ka micnaheedu tahay af soomaali aayadda labaad suurat atakwiir aayadda koowaad ilaahay wuxuu yidhi ida shamsu kuwirad wixii soo noqda weeye kawir xasan kawir xuseen kawir axmed kawir wixii soo laabtay kuwirad soomaalidu waa isticmaashaa aayadda kalena wuxuu yidhi aayadda 17 suurat atakwiir walleyli idaa cascasa habeenku hadduu casaa noqdo cascas walleyli idaa cascasa habeenku hadduu soo casaado soo galo af soomaali weeye aayaddan suurat alinsaan aayadda 28 ilaahay wuxuu yidhi naxnu khalaqnaahum washadadnaa asrahum waanu abuurnay asarkoodiina waa adkayna asarku waa asalka ama isir soomaalidu ay tiraahdo isirraac ama isirkoodii baan adkaynay xisaabtana waxaa jirta isirraac tan factorizeka marka numberka la furfurayo prime number loo furfurayo aayaddan kale aayadda 27 suurat alfaatir ilaahay wuxuu yidhi wamin aljibaali judadun biidun waxumrun mukhtalifun alwaanuha wagaraabiibu suud wamin aljibaali judadun biid waa turuqun biid ama jidad cad judud waa jidka judad soomaalidu waxay tiraahdaa jidka cad judadun biid jidad cadcad suurat alfaatir mar kale aayadda 12 watara alfulka fiihi mawaakhira litabtaquu min fadlihi walacalakum tashkuruun mawaakhir mawaakhir waa maakhiri waa dooniyaha ama meesha ay ku soo xidhato
fulk waa doonta markay maakhirka kusoo xidhato. Soomaalidu waxay isticmaashaa maakhir, waa xeebaha doonuhu dekadaha ee kusoo xidhtaan. carabtu ma isticmaasho, soomaalidu unbaa isticmaasha. aayadda suurad faatir mar kale aayadda 29 ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina yatluuna kitaaba allahi waaqaamuu الصalaata waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur. kuwa akhriya kitaabka ilaahay salaadana ooga baxsadana wuxuu ilaahay siiyey si sir ah iyo si muuqaala u baxsada, waxay rajeynayaan tijaaro aan baariyeen, tabuur aan baariyeen ama aan khasaare ku jiro. tijaaratan lan tabuur aan baariyeen weeye. suurat alxaaqa ilaahay wuxuu yidhi alxaaqatu malxaaqa. alxaaqatu malxaaqa. meel kalena waxaa la yidhi waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab. suurad kaafir 45 aayadda 45. waxaaqa waa la xaaqay. xaaqista soomalidu way taqaan marka wax la xaaqayo oo la nadiifinayo. aali fircawn waa laga nadiifiyey dhulkii oo cadaab baa lagu guray. waxaaqa biaali fircawna suu alcadaab. halkan alxaaqatu malxaaqa, tii xaaqaysay. aayaddan suurat alxaaqa aayadda 11 ilaahay wuxuu yidhi inaa lama taga almaau xamalnaakum fi ljaariya. doontii nabi nuux baa laydku qaaday, jaariya baa leeyahy, gaari. markuu biyuhu kor aadeen oo biyuhu isku bateen, gaari baa laydinku qaaday, gaariya. soomaalidu way isticmaashaan waxa ordaya gaari, horta wixii ordaya weeye. suurat yuusuf aayadda 25 ilaahay wuxuu yidhi wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min duburan waalfa yaa sayidaha lada albaab. nebi yuusuf baa laga sheekeynayaa maaragtay oo suurat yuusuf. alfa yaa sayidaha waxay ku aragtay ama ka hor yimi seydkeedii albaabka hortiisa. seydku waa ninkeeda ama soojkeeda. waxay aragtay seydkeedii. soomaalida waxay isticmaashaan seyd, heblaayo seydkeeda ama ninkeeda ama wadaadkeeda. suurat maryam aayadda 8 ilaahay wuxuu yidhi waqad balaqtu min alkibari citiya. citiyaan gaadhi. soomaalida waxay isticmaashaan cutush. qofku markuu gaboobo waa oday cutush ah. min alkibari citiya. halkan aayadda suurat annaazicaat aayadda 42 ilahi wuxuu yidhi yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha. waxaa lagu weydiinayaa nebi maxamedow saacaddu ama qiyaamuhu ayaantee bay dhacaysa. ayaan soomaalida baa isticmaasha ayaantee. carabtu yoom bay isticmaalaan, ayaan ma isticmaalaane. laakiin kelmaddu waa carabi, laakiin carabtan isticmaaleen, soomaalida unbaa isticmaasha. suurat alancaam aayadda 7 ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ubsiluu bima kasabuu lahum sharaabun min xamiimin wacadaabun aliimun bima kaanuu yakfuruun. ulaa'ika aladiina ubsiluu bima kasabuu. gaalada laga hadlaya markay jahannamo galaan way ku bislaadeen. ubsiluu way ku bislaadeen weeye. bima kasabuu waxayna geysteen weeye, dembiga geysteen. suurat alancaam aayadda 17 ilaahay wuxuu yidhi xayraana lahu asxaabun yadcuunahu ila lhudatina. xayraan soomaalidu wuxuu isticmaashaa qofka confuska ama qofka iska wareersan. halkana marka ilaahay wuxuu yidhi xayraan waa qof xayraana oo asxaab haysta, asxaabtiis u yeedhayso annaga noo kaalay. suurat alancaam aayadda 49
إلهي وحيري لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع بينكم ويقوقوضي بينتيني بينتا اسكو قري جرتين ويدماطي ويقوقوضي أما لحدينا بين و between لحدينا ما عرفت. لقد تقطع بينكم بينتيني ويقوقوضي. سورة المطففين آية 14 إلهي وحيري كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوبتو دران بالا صار ران ودحل أما الران سمردا استعماشا برتي وين راميستي. سورة الفرقان آية 16 إلهي وحيري وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجرا ولا بدا بيها معاني بيها بضة إلهي وكلا حد حجر محجور بوكلا السنة صور حجر محجور بانو كلا نهاي سومر ذا استعماشا. سورة الحجر آية 7 إلهي ولقد أتيناك 7 من المثانية والقرآن العظيم. نبي محمد وحنا كسيني 7 مطانة مثاني ومطانو قرآن العظيم سمرضو مطانة يرادا هل كان مثاني باترمي. سورة آل عمران آية 140 إلهي يحير إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هدو قرح إذا كدعو قرح سمرضو استعماشا إيجا بقارضة بقرح وكدعي قرحي سمرد استعماشه. سورة النمل آية 7 إلهي وحيري أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. نبي موسى بالغ شكينيا مركو ريركيسا كويري ضبان إذي كينيا واسكو كلاشان تصطلون اسكو كلاشان قبس إذي سو قبانيا وقبشدي أو آتيكم بشهاب قبس وحان إذي سو قبانيا طبعات كلاشان وقبشو قبس عربت بساسي كفسران. سورة القلم آية 11 إلهي وحيري سنسمه على الخرطوم وحان كسم مضينينا خرطوم كودا سنسمه الصمد. سورة القمر آية 12 إلهي وحيري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. وحجرت الذكري الذكري من دال كل دبيع بو هايستا تنو دال كل دبيع ما هايستو عرفتو تنا استعماشا تن دبيع ذا هايستا لكن الصومالي تن دبيع ذا أنا هايستن باستعماشا قرآن كل بدي بوا استعمالي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. آيات 16 سورة الأعراف إلهي وحيري فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نبي بالغا hadlaya markii ilaahay qoomkiisa markuu halaagay waxaan filayaa inay yihiin qoom saalix baan filayaa. ilaahay markaasuu nabigii wuxuu ku yiri nabigoodii waan iskaga tegay sidee baan asay ugu qaataa dad kuwa kaafiriina gaala ah aasa asay ugu qaata fakayfa aasa ala qawmin kaafiriin sidaan asay ugu qaata. سورة الواقعة آية 5 إلهي وحير وبست الجبال بسا بورها وحالقا دقي بس يعني بسكا ولا قرانيا وحي بود نقضة يعني بوريه دما ووينا وحي نقضين بس قبي قودبا سوماردا استعماشنا بسكا. سورة الماعون آية 7 إلهي وحير ويمنعون الماعون ماعون تو أولك وحلقوا ماعون سومالي استعمال قار عربنا واستعمالان. آية كوبي كوتونات سورة الكهف إلهي وحيري ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضودا.
ilaahay wuxuu yidhi gaalada anigu kama dhigan markhaantiyaal ama dadkaba khalqigaba markaan cirka iyo dhulka markaan abuurayay markhaanti kama dhigan iyo iyaga naftigooda markaan abuurayay wamaa kuntu mutakhida almudiliina caduda kama dhigteen dadka habowsan cudud cadudka waa cududda yani cudud kama aan dhigan cadud wamaa kuntu mutakhida almudiliina caduda yani mudiliinta cudud kama dhigan سورة الحقاف آية كوب يلا باتناد إلهي وحيد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واحد حصوصي صار واحد شكت النبي محمد عاد ولا الكود مركو قوم كيسي وقدق حقافك بالأحقاف أحقاف وحقاف بشتك عيد له حقافك الصمرد التراضو إلهي الكوحيد أحقاف سورة الأحقاف آية 6 إلهي يحيل وذلك إفكهم وما كانوا يفترون إفكو تاسو أفكوضا يعني أفكوضا بكشيغا ينبينتا إي افتراغا وذلك إفكهم تاسي وأفكوضا أما بينتوضا سورة الذاريات آية 6 إلهي يحيل نبي إبراهيم بلغا هدليا مركي ملائكة دي مركي أتمي ونف أكيني نف أسوقلي دبي فراق إلى أهله فجاء بعجل سمين فراق وحو اسكرو راق حرف غاء يجاء واسكانا عربيا عربتو جاء مركي قريان غاء بكدغاني حرف كودا حتى واد مقشن مركي أردوغان قريان أردوغان بوابي قراني غاء أردوغان يقول أردوغان أوليتشيدا فراغ raaqa waa rogista dib buu isku rogay oo reerkiisii buu dib isku rogay siduu u keeno dibi buuran martidii u timi oo ugu soo kariyey raaqa soomaalida unbaas waa rogis rog ama rogis weeye wuxuu isu rogay ehelkiisa aayadda 6 suurad maxamed إلهي وحيد ويدخلهم الجنة عرفها لهم كانوا قلينيا وعرف أقسمي عرفها وأعرفي وتقول عرفك الصومال ده استعماشا عربتو عطر يبقى استعمالانية كلمة كلا سورة الصافات آيات بقولي أفرتناد إذ أبقى إلى الفلك المشحون إذ أبقى النبي يونس بلغا هدليا أبقى وبقى oo doontii buu raacay doontii الفلك المشحون إذ أبقى وبقد سورة الأعراف آية بقول يسألونك كأنك حفي عنها النبي محمد وحكوا دينيا قيامة وحكوا كأنك حفي هذا اللي حفاله حفي وحفاله آيات كوي سغاشنات سورة الحجر إلهي وحيد الذين جعلوا القرآن عظين قرآن كوي كدغا عد يعني القرآن كغوغوي عظين عد كدغاي الذين جعلوا القرآن عظين آيات بقول أفراد سورة الإسراء إلهي وحيد فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وحانو دي كان رير بني إسرائيل بالغا هدليا آخر السمان كبالغا هدليا وحالدي سو أرورينيا ليدي كانيا لفلف أما رير لفيفا لفلف أما رير بالدي سو أرورينيا رير بني إسرائيل عدتين وكو هذا لغو سو أروريي دولك فلسطين سورة العرف آيات بقول 9 إلهي وحير وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل شعيل بقسمي صورة شعيل باستعماشها وجعل زوجك سيد ولدك جعل منها يعني أقول لك شعيل سيد ولدك منها زوجها
آيات لحية كنتونات سورة النحل إلهي وحيري تالله لا تسألون عما كنتم تفترون. طلوا دار تأوح وأداة قسم وتاء القسم ودار سومالي دار بادارتا استعماشة تالله عرفتو والله واب استعمالا والله، لكن تالله سومالي با استعماشة لا تسألون عما كنتم تفترون. سورة البقرة آيات سدد الحنانات إلهي وحير قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وحلقة هذا اللي صعدي نبي موسى ربي أمر بني إسرائيل إني قلان حلي هاي وحيتها لا فارض ولا بكر عوان وعون، يعني سمرد في استعماشها عون نوام حي من وين من يرى، يعني الدأدة بقرة أما صعداس وعون، يعني دأ وين ماها دأيرنا ماها عوان بين ذلك لا فارضا ولا بكر. فارضنا ماها بكرنا ماها وعوان بين ذلك وعون باستعمال الصومالي. إلهي وحو يري هلكن سورة اللقمان آية اللي حي طبنات يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بالكي يهدي تالو مثقال حبة مثقال وحقات بيروي حبة من خردل فتكن إيه شوكتو الصخرة دقح كهوز جرتو أما إركة تالو أما دولكا تالو ميل كستا إيه تالو إلهي وكين كرا. marka halkan qiraa'ad kala jirtad kuwa waxa loo aqriyaa fatukinnu fi sakhra fatukinnu qiraa'ad kale fatukinnu yani waa maxay beedkeeda ukunta Soomaalidu waxay isticmaashaa ukun waa ukunta waa beedka yani khardalkaas haday tukinnu fi sakhra ee beedkeeda dhigto ama dhagax korkiis ama cirka ama dhulka ilaahay uu keenaya. فتكن في صخرتنا وقراءة أساسية قراءة كلنا فتكن في صخرة يعني بيت كذا اسكدا يدي خدلك مثقال حبة يريد اسكدا فوا دشو بالغا هدليا اسكدا يدي بقى فتكن في صخرة اي كنت ذا ديكتو صخرة اما سماوات كما دولك يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. sidaas weeye waxaa xaqiiqo ah oo la caddeeyey khubaro badan caddeeyeen luqadaha ku takhasusay afka Soomaaliga inuu afka Soomaaliga siduu u dhan yahayba af carabi ka soo jeedo. kelimad kasta kelimad Soomaaliyeed oo aan carabi ahayn ma jirto. taas ba xaqiiqo ah هدر كلمة هيك مركاد اكتان قدي وعربي. سيدا ايوه مع السلامة. بن عيسى channel فضلا سي شير قري لايك نطابو سبسكرايب كقيب قال channel كا ايو اوغيسيس كبيلكا.